Faahfaahinta heshiiska uu Jeremy Frimpong ugu biirayo Liverpool oo la ogaaday. Kooxda Liverpool ayaa ku sii dhawaanaysa saxiixa xiddiga kooxda Bayer Leverkusen ee Jeremy Frimpong. Sida ay sheegayaan wararku, Jeremy Frimpong ayaa noqday bartilmaameedka ugu weyn ee Liverpool suuqa xagaaga si ay ugu xoojiso daafac midig xilli ciyaareedka dambe. Liverpool ayaa durba bilowday dadaalada ay ku doonayso saxiixa xiddiga reer Netherlands si ay degdeg ugu dhamaystirto heshiiska. Wararka ka imaanaya Germany ayaa sheegaya in ay Liverpool haatan heshiiska shakhsiga la gaartay xiddiga Bayer Leverkusen. dhinaca kalena Arsenal oo loo sheegay xiddiga ugu horeeya ee ka tagi doona kooxda haddii aynan koob ku guuleysan. Declan Rice ayaa lagu tilmaamayaa mid ka mid ah ciyaartoyda Arsenal ee bixi kara haddii ay sii socoto abaarta koobabka ee kooxda. Guuldaradii toddobaadkii hore ka soo gaartay semifinalka Champions League ayaa la micnaa in ay Gunners ku dhameysan doonto xilli ciyaareedkan iyagoo aan wax koob ah ku guuleysan sanadkii shanaad oo xiriir ah. Rice ayaa isbedel ku sameeyay kooxda Mikel Arteta tan iyo markii uu 105 milyan ugu soo biiray sanad ka hor, waxaana uu qayb weyn ka qaatay in Arsenal ay gaarto afardhamaadka Champions League isagoo laba laad xor ah ka dhaliyay kulankii Madrid. Laakiin Rio Ferdinand ayaa aaminsan in Rice oo kula guuleystay koobka Conference League West Ham ka hor inta uunan ku biirin Arsenal uu noqon doono xiddiga ugu horeeya ee ka tagi doona Arsenal haddii aynan kooxdu koob ku guuleysan mustaqbalka dhow. waa hagaag daawadayaal, waxaan soo gaarnay dhamaadka muuqaalka. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay ha ilaabin inaad muuqaalka laag saarto sidoo kalena aad sii shargeliso. haddii aad nagu cusubtana nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.